بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد وعشر كيني أما درس كيني تضوات وانا قبل وانا حديث كصغالية تونات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسولك صلى الله عليه وسلم حريص إن بدقل يدشي سألها يلو قال النبي وحوري من غدا قفكي كلها إلى المسجد مساجد كأكله أو أما راح أو عرابة أعد الله إليه وحو دياريا له كاس عراوي أما كلهاي في الجنة جنة قده نزلا مرتصور نزلا قري كلما مر البو غداء وحوي كله أو أما راح أو عراوه إلهي وحو دياريا مرتصور ودياريا قريب وأغد دياريا جنة قده متفق عليه وهي حديثك من غدا قف على قفكي كلها إلى المسجد مساجد كأكلها حقيسة أو أمراح أو عرابة عد الله إلهي وحو دياريا له في الجنة جنة قده نزلا مرتصور ودياريا نزلا قريب ودياريا ميل لديكو كلما مر البؤ غدا وكله أو أمراح أو عرابه caraabidana waxa weeye waa galbihii iyo wixii ka dambeeya socodka la socdaa la yihahdaa qadaahana waxaa la yihahdaa subixii socodka la socdaa la yihahdaa labada jeerba markaad masaajidka aada u tagto xilli walba oo xilliyada ka mid a waa inaad masaajidka ku xiran tahay nabiga sala allahu calayhi wasalam toddobadii ilaahi subxaanahu watacaala carshigiisa maalinta qiyaama loo harsinayo wuxuu ku daray rajulun waa nin mucalliqan masjid qalbuhu fi lmasaajid waa nin qalbigiisa masaajidka uu ku xiran yahay qalbigiisa masaajidka ku xiran oo xilli walbaba inuu ku tukaduu jecel yahay salaadaha waajibaadka ah inuu ictikaafo inuu qur-aan ku dul aqriyo ama ku dhex aqriyo wuu jecel yahay masaajida ilaahay subxaanahu watacaala qalbigiisa masaajidka qofka ku xiran wuxuu ka mid yahay toddobada carshiga raxmaanka maalinta qiyaama harsanaysa waa xadiidka muttafaqun caleyhi wey xadiidka labaatanaad can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi aayat lmunaafiqi munaafiqa calaamadihiisa halaathun waa saddex qofka munaafiqa ah calaamadihiisa waa saddex munaafiqa waxaa loo jeedaa qofka calooshana gaalnimada ku haysto korna ama waxa weeye jabaarixdaana xubnahana ka muujistay islaamnimada iyo iimaanka ka muujistay baa munaafiq la yihahdaa calaamadaha munaafiqa uu leeyahay halaathun saddex waaye buu nabiga yihi sala allahu calayhi wasalam saddexdaas waxaa ugu horeeya idaa xadatha markuu sheekeynayo kadaba uu been sheegaa mar walba uu sheekeynayo been buu ku sheekayaa wax run ah ma yaqaano calaamadiisa labaad waxa weeye wa idaa wacada markuu ballan qaadana akhlafa wuu baajiyaa wa idaa wacada markuu yabooho balan uu qaado balantii wuu buriyaa oo wuu guub yeelaa oo balantii kama soo baxo sidii loogu talagalay oogama soo baxo calaamada saddexaadna waa idaa tumina khaana haddii la aminana wuu khayaanaa oo wuu quduuca oo waxa weeye haddii shay lagu amino 10 shilin haddii lagu amino waa qayaanaa wax ka badan iyo wax kasii ziyaadsan min baabi owlaa waa muttafaqun caleyhi marka calaamadaha qofka munaafiqa lagu yaqaano waa saddex calaamadood xadiid kale wuxuu nabiga sheegay afar buu ku sheegay oo waidaa waxaa marka uu doodayana wuu faajir waidaa qasama fajara haddii uu doodayo ama uu murmaayana wuu faajirnimo falaa oo diintuu ka baxaa wuu fijooroowa oo waxa waaye wax xadgudub uu sameeyaa way marka calaamado fara badan ba waxaa nabiga sala allahu calayhi wasalam uu ku sheegay calaamadaha munaafiqa waa saddex aayat lmunaafiqi halaathun munaafiqa calaamadihiisa munaafiqnimadii diinta looga baxayay maahan idaa xadatha markuu xadatho ama uu sheekeynayo kadaba been buu ku sheekeeyaa kow wa idaa wacada markuu yabooho ama uu balan qaadana akhlafa wuu guub yeelaa oo wuu baajiyaa balantiisii wuu buriyaa labo wa idaa tumina khaana markii la aminana wuu khayaanaa oo shay laguma amini karo wuu khayaanaa muttafaqun caleyhi xadiidka cashirkan ugu dambeeya waa can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yihi maa asfala min alkacbayni min alizaari fi nnaari maa asfala wixii ka hoos mara oo min alkacbayni anqawyada wixii ka hoos mara oo min alizaari marada iyo waxaweeye sarwaalka iyo baasha la yihahdo macawiista iyo khamiiska iyo wax walba hoos laga qaato wixii anqawga laftaas anqawga la dhaho wixii hoos ka mara fi nnaari naarta gudaheeda ahaatay oo naar baa cunayso saasuu yiri nabig sal sl marka sarwaalka inaad dheereysato da-bi islaam ma ahan inaad khamiiska dheereysato da-bi islaam ma ahan inaad macawiiska dheereysato da-bi islaam ma ahan qofka jees iyo qoyala sarwaalkiisa iyo macawiistiisa dhulka ugu jeedana ilaahay subxaana watacaala asigoo u caraysama maalinta qiyaama ula kulmaa
marka wax qaab daran waaye qofka inuu waxa waaye caataya sida abubakar sidiiq oo kale nabiga sal ly slam xadiidka markuu sheegay oo nabiga abubakar wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahiyu aniga hadda waxa waaye baashi waan celiyaa balkor adiga waxa waaye dadka quyalada iyo waxa waaye ikhtiyaar iyo jeesjees iyo kibir iyo waxaa u sameynaya ma tihid adiga kamid ma tihid baa lagu yidhi abubakar sidiiq marka inaad marada si edeb daro iyo kibir iyo waxa waaye isla weyni aad dhulka ugu jiido waa edeb daro qofka muslimka ah maradiisa waa inay anqaw dhudhunkiisa kala barkiisa waa inay joogto hadday hoos u degto waa inayna anqawga ayna ka hoos marin wixii anqawga ka hoos maro naarta cunayso nabi sal ly slam yidhi macnaheedana ma ahan in ay marada cunaysa naarta ma ahan ee waxay cunayso waxa waaye jirkaasay cunaysaa lugahaasaa la naarayaabaa loo jeedaa qofkaasaa la naaraya oo naar buu ku mutaysanayaa marada uu dhulka ku jiiday sidaasaa laga wadaa dumarka ayaga waa cagsi oo min baabi owlaa ayaga waxaa la yidhi waa cagsiga ragga oo ayaga dhulka ayay ku jiidaan baa la amray inay ku jiidaan oo waxaa intaan la eg shifraa nabi sal ly slam wuxuu yidhi raariciya markaasa waxay yidhahdeen rasuulka ilaahiyo waxaa la arkayaa marka anqabideena iyo waxa waye cirbaheena la arkayaa dhudhun ku hoos mariya hana ka ziyaadinina buu nabi sala alla alay slam yidhi marka gabadh inay maradeeda dhulka ku jiido waa ayada sunno ah raggana inay kor u qaadaan baa sunno ah sida hadda adduunyada loo bedelay cagsigii hadda waxa waaye raggiibaa marada dhulka ku jiidahayo dumarkiina kor bay u qaadeen oo ilaa ay xanjeerteen oo cajaradooda ay banaanka dhigeen marka waxa waaye waa dhaqan reer galbeed wax la yaqaana maaha wax diina maahan cid walboo ku dayatana ayaga diintoodu qaatay cid walboo ku dayatana waxa waye man tashabaha qowman fa huwa minhu nabi sal ly slam yiri qofkii qowm isku shabaho ayagu ka mid yahay almar-u maca man axaba qofku jeclaado la mid yahay markaad waxa waaye timaha u xirata say ayaga u xirtaan oo kale markaad u socota say ayaga u socdaan oo kale markaad waxa waaye marada aad u xirata sida ayaga u xirtaan oo kale ayagaad la mid tahay ma gaaraysid nabiga sal slam nin baa wuxuu ku yihi rasuulka ilaahiyo nin baa wuxuu jecel yahay qoom kale ama qof kale inuu iska dhigdhigo oo iska yeelyeelo sidoodoo kale inuu usocdo laakiinse ma gaarin maxaa xukunkiisa noqonaya nabiga sal ly slam wuxuu yihi almar-u maca man axaba qofkuu jecel yahay buu la meel yahay marka waxa waaye qofkaas jecesha waa inuu noqdo qof waxa waaye ilaahay subxaana watacaala diintiisa kuga hagaayo ilaahay subxaana watacaala nabi maxamed sunadiisa sala allah alay wasalam aad oga dayanaysid inuu noqdaa kheyr badan marka sida fiican xaqa ah sawaabkana ah adigana aad ku badbaadaysid maradana u dan iyo kheyr badan waxay tahay inaad maradaada dhudhunka kala barkiisa haddii aad ka hoos marisid anqawa inayna ka hoos marin sidaasaadna ku badbaadaysa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi maa asfala wixii ka hoos mara min alkacbayni anqawyada wixii ka hoos mara oo min alizaari marada ama macawiista ama sarwaalka ama hoosguntiga ah fi naari naarta gudaheeda ahaatay xadiidkaasna bukhaari baa soo saaray waa xadiid waxaa wariyey alimaam bukhaari baa xadiidka wariyey cashirkeena marka meeshaas insha allahu tacala kusoo gaabin doona cashirka sideedaad waa insha allah noogu xili doono hada wabillahi tawfiiq subxaanaka allahuma wabixamdika nashhadu an laa ilaha illa anta nastakfiruka wanatuubu ilayk